oo jidka shaydaanka aysan u qurxin oo aysan dahab ugu daadin laakiinse jidka saxda ah aan tusno oo u sheegno ummadda khayra iyo farmaajo waa jidka kaliya ee horumar maanta Soomaaliya ay ku gaari karto 3 sano ee u dhiman waxa maalin iyo habeen aan u hadlaynaa waxa weeyaan Soomaaliya jidka kaliya iyo cidda la rabto wanaag waa farmaajo iyo khayra waayo waan aragnay iftiinka yar ee ay fureen waan aragnay inaan ku garab istaagnana waa ku qasbanay laakiinse macnaheeda ma aha anaga wax gaara ayaan ku qabnaa waxaan rabaa marka canaanta aan u soo jeedinayo waxay tahay labadaas mas'uul canaanta aan u soo jeedinayo dal sidiisaba awood laguma qaban karo hub kasta aad haysato kuma xalin kartid awood maskaxeed iyo mid siyaasadeed iyo mid ciidan iyo mid military iyo mid hub midna wax kama qaban kartid waxa wax lagu hagi karaa waa sharci weeyaan fadlan barnaamijkan inaad sii share gareysaan waliba qodobkan ugu dambeeya aad buu ummadda muhiim ugu yahay dawladda muhiim ugu yahay dal sidiisaba laguma hormarin karo awood ciidan laguma hormarin karo awood siyaasadeed laguma hormarin karo xabad iyo hub baan haystaa ama dad baa hub igu soo caawinaya maya faa'iido kuma gaaraysid cid baa la dilaya ama cid baa xoog iyo awood lagu muqoninaya waxa adduunku horumar uu ku gaaray waa sharci lagu kala dambeeyo waa sharci lagu kala dambeeyo weey waxa adduunyooyinka wadamada wada quwadda leh ee aanan xabadi tushka oran sababta u ah ee horumarka gaarsiiya wax kale maaha waa dastuur iyo sharci ay qorteen oo meel u yaala oo qofka waxa ugu yar waxa weeyaan wado inuu si khaldan kaga gudbo waxa ugu yar iska daa naf la gooyo iska daa xoolo la kala dhaco iska daa dambi kale la dhaco iska daa qof wax lagu sameeyo dhibaato qof loo geysto waxa ugu yar wado si khaldan aad u geyso waxa la marsiinaya waa sharci kan reer hebel buu yahay kan hub buu haystaa kan intaasoo ciidan uu leeyahay maya waxaasoo dhan ma shaqeynayso waxa shaqeynaya waxa weeyaan waa sharci weeyaan dhaliisha marka maanta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha aan soo jeedinayo annaga labadooda oo kaliya ayaa dalkan ugu sareeya maamul goboleed annaga wax naga galay ma jiro xildhibaano waalwaalan wax naga galay ma jiraan awood idinka ayay idinka fushaa oo ugu sareeya madaxna meel ka sareyso la salaaxa ma jirto sanad iyo maanta waxaad mareysaan saan filayo 3 bilood dana qaldanay aaway marka dastuurkii la lahaa qabyo qoraal weeyaan waa la dhameystirayaa maxaa meel loo saari la yahay waxa ku filan dastuur sidaan qabo aniga hadday ugu badato cirka ay u boodo waa 6 bilood oo lagu dhameystiri karaa 6 bil oo kaliya ta ayaa lagu dhameystiri karaa wax 6 bilood aad ku dhameyn karto maxaa keenay 1 year iyo 3 bilood bay hadda maraysaa inay gaadhaan waxaan rajeynayaa dadka aadka u taageera farmaajo khayr maanta inaysan khaladii fahmin laakiin runta in la isku sheego mararka qaarkood waa lagama maarmaan waxaan runta idinku sheegayaa waxay tahay danta guud markasta inaad ka hadashaa waa lagama maarmaan waxaan idin sheegayaa marka dalku sidiisaba haddii uusan lahayn sharci lagu kala dambeeyo wax kala soconaya ma jiro haddaad shalay lahaydeen jawaari baan hortaagnaa oo sanadkii koobaad jawaari baa khasaariyay oo hindisiya sharciyeedyadii la gudbiyay oo dhan waxay baarlamaanka u saxiix waayeen because afayeenka baarlamaanka hortaagnaa maanta mid idin la safa ayaa ah afayeenka baarlamaanka maadaaba uu marka gudoomiyaha baarlamaanku uu yahay nin nabad iyo nolol wadadeeda haya 6 bilood oo soo socota ummadda Soomaaliyeed waxay idinka rajaynaysaa dastuur meel mara oo qodobka ugu hooseeya ilaa ka ugu sareeya dhameystiran oo aanan waxba ka tagaynin qof kasta khaladkiisa iyo dambigiisa uu galana lagu qaadi karo cidina aysan ka tabajuuqi karin marka dastuurkaasi la horkeeno qofkii dambi gala gabadha la kufsanayo midda la taabanayo midda la jiidayo taalaabteeda la dhacayo midda cawtal dariiqo uu jidka u istaagayo dhammaan kii qof dili lahaa iyo kii dambi geyn lahaa xataa qofka doonaya qaran dumisnimada midka madaxda ah maamul goboleedka midka haysta daba iyo dacal dastuur aanan waxba ka tagin ayaan idinka rajaynaynaa 6 bilood ee soo socota inaad dhameystirtaan haddii inta ummadda Soomaaliyeed idinka weydana waxa la isku sheegayaa waa been
6 bilood ee soo aadan dastuurkan qabyada ah 30 sano inuu qabyada ka baxo ayaan rajaynaynaa oo 2019 aysan noogu dhalan dastuur baa qabya intaas baan ka rajaynaynaa ciidan idinkama tuugayno soo badiya al-shabaab la dagaalama Ethiopian iyo Kenyaanka naga saara waxa kaliya oo ummadda Soomaaliyeed idinka fadhida 6 bilood ee soo socda waa dastuurka qabyo qoraalka ah adduun sharci baa kala haga adduun sharci baa kala haga haddii uusan sharci jirinna wax kala soconaya ma jirto waxaan isku qasan ee madaxa iskula jira maalinba gabadh yar shaqada looga ceyrinayo maxaad u taageertay dawladda mid cunaha loogu dhagayo mid loo xidhayo mid loo dhibaateynayo sharcigaasi mid loo kufsanayo sharcigaasi haddii uu dhammaystirnaan lahaa waxaasi ma aysan dhaceen dil baanan dhaceen kufsi baanan dhaceen edab darro kalaanan dhacdeen qaran dumisnimaan dhacdeen dal shisheeye loo adeegaan dhaceen qaranka oo meel sharaftiisa looga dhaco iyo ummadda Soomaaliyeed karaamadeeda meel looga dhaco iyo dalka oo la kala iibsado baan dhacdeen waxaasoo dhan dastuur meel saaraya oo sharciya ayaan u baahanahay dastuur baan uga baahanahay maanta farmaajo iyo khayr wax kale uga ma baahanin dastuur baan uga baahanahay Maxamed Mursal iyo inta uu madaxda ka yahay ee baarlamaanka ah iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha 6 bilood ee soo aadan dastuur dhammaystiran ayaan u baahanahay intaas waa fariin aan rajaynayo inaad iga gaarsiin doontaan meesha dalkan looga taliyo waana ogahay social media inay si fiican ay indhaha ugu hayaan ay la socdaan waan ogahay si toos ah iyo si gaar ah contactigiina waan idinku soo gudbin doonaa 6 bilood ee soo socota hadduu dalkan idinka waayo dastuur dhammaystiran oo cid walba wadadiisa saxda ah marsiinaya wax taageero la idin haynaya ma jirto wax aad dalkan u haysaanina ma jirto runtaan idin sheegaya waxa lagu kala baxaa waa dastuur weeyaan waa sharci weeyaan haddaanan sharci la meel marin wax soconaya ma jiraan sanadkii hore waa la idin cudur daaray xaaladda dalka uu ku jiray darteed qaraxyada iyo dhibkii dhacay darteed dagaalada aad ku jirteen darteed maxaan ku raahdaa siyaasadda aan wada qura ku wada soconin darteed jawaari baan dhahno dartiis si kasta ay ahaato sanadkii hore waa la idin cudur daaray laakiin sanadkan la idin ma cudur daarayo waxa ugu weyn ee la idinka rabaa nabad iyo nolol maanta waxa la idinka baahan yahay shacabku idinka fadhiya hawshaanu idin dirsanayno waxay tahay maanta ay taariikhdu tahay 12 baan filayaa bisha 5aad sanadku intuusan dhammaanin dastuur dhammaystiran ayaan ka rajaynaynaa intaas ayaan rabaa inaad iga gaadhsiisaan cid kasta oo Soomaaliyeed oo i dhageysanaysan inay sii share gareyso ayaan rajaynayaa ma doonayo inaan ku sii daaho kaliya waxaan rabaa marka ugu dambeyntii caafis iyo musaamax inaad iga tihiin dhammaantiin weli qaar baa soo caytamaya dadka wixii caytamaya aniga wax iga galaami jirin laakiinse waxaan idin sheegayaa cilla ha ku xiiqin qiyaamahaagana ha ku seegin iyo aakhiradaada anigu haddaan cid wax ka sheego waxaan wax ka sheegayaa waa cid mas-uuliyaddeeda qaaday qofkii mas-uuliyaddeeda qaaday hadduu mas-uuliyaddeeda ku ciyaaro xaq baan u leeyahay sida allaale iyo sidaan doonayo inaan uga hadlo si allaale iyo sidaan rabo inaan wax uga sheego xaq ayaan u leeyahay igamana hor istaagi kartid aniga kulama caytamayo kumana jawaabayo waxa kaliya aan samayn karaa inaan page-kayga ka baangareeyo ana iskala page-kan wax alla waxaan rabaan ka sheegi karaa haddii adab daraan kugu arkana hawadan kugu cunayaa bes maxay naga dhaxeeya magaliyaad bas uu keen jira waa maya waxay naga dhaxeeyaa ma jiraan kaliya waxay tahay waxa kaliya aan saari karo ban this is my page inaan ku baangareeyo that's it wax kale ma jiraan ha igu soo daalin marka hana u noqon daba dhaqe nin dayus ah daba dhaqa ha u noqonin nin edab daran dalkaaga iyo dadkaaga ku ciyaaraya ha u noqonin daba dhaqe inta marka rabadaanka lagu guda jiro si walba ay ahaataba si kastay dambi nooga galaan si kastay noogu tarkifalaan si kastay intay madaxdayada u sheegtaan haddana xoolaha ayaga ay u eebgeystaan si kastay imaaraad noo hoosgeeyaan si kasta oo ay dhib noogu geysanayaan si kastoo aan u ognahay inay xaq aan ugu leenahay wax kasta oo ayaga ay noo ballan qaadeen hadday kasoo bixi waayaan inaan runta u sheegno laakiin haddana iyadoo ay taasi jirto bisha rabadaan waan ka khafiifin doonaa haddii la yiraahdo bisha rabadaan ee soo socotaa waa bil cibaado waan ka khafiifin doonaa waxaan ka hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin waxa ugu muhiimsan qofku
dadka qurbaha jooga khaasatan dal iyo dibad meel kastaba joog qofku markuu qof yahay Soomaaliyeed oo uu la joogo ummad kale waxa uu xambaarsan yahay inuu og yahay qodobkaas rabadaanka dhexdiisa marka hadli doona waxyaabo fara badan oo aan arkayna waan idin la wadaagi doona oo dadka Soomaalida ah ku arkay waliba waxa kamid ah haddii adiga maanta aad tahay qof Soomaaliyeed oo aad ummad kale la joogto tusaale yar baan idin siinayaa adigoo qof Soomaali ah dukaan baad haysataa kaba soo qaad waxaad shaqaalaysiisay qof aan badho Chinese qofkii Chinese-ka ahaa wuxuu noqday tuug markuu raba waxbuu ka xadayaa been buu ku sheegayaa corruptionist kugu noqday hadduu raba wuu ku lugooyay waxbuu ka kala tuuray oran maysid qofka hebel baa la yiraahdaa hebel bay xumeen laakiin waxaad oranaysaa qofka Chinese-ka ah dad dambe oo Chinese ma shaqaalaysiinayo because Chinese-ku waa dad xun Soomaa qofka Soomaaliga marka taasoo kale weeyaan haddaad tahay qof Soomaali ah baad ama meel ka shaqayso ama aad ummad la nooshahay ama dad kale aad la joogto waxa aad xambaarsan tahay kaliya maaha Soomaali waxaad sidataa magacyo aad u waaweyn koo waxaad tahay qof madow ah qaarad dhan magaceed bad sidataa dadka Afrikaanka ah magacooda xambaarsan tahay dadka Islaamka ah oo Carab iyo Cajab iyo Cadaan bale magacooda xambaarsan tahay dad sharaf leh oo Soomaali la yiraahdo magacooda xambaarsan tahay hays oranin marka maxay iga galay aniga waan ka danaysanayaa marka waxaan arintan u soo qaadanayaa waxyaabo badan oo aan ku arkay halkan oo dad Soomaaliyeed ay sameynayaan ayaa jira oo ay kamid tahay dadan meelka wada shaqeyn jirnay oo aan hal ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo runtii meelaha ka shaqeynayeen ka gala khaladaad fara badan qaarkood shaqadiisa laga cayriyay anigu waan ka tagayay maxay iga galay shaqo kale baan helay maxay iga galay meel baan u socdaay maxay iga galay marka waxaad ilowday wad meesha ka saartay adiga waxba kaama gelin laakiin dadka ka dambeeyay ilowday magaca aad xambaarsan tahay ilowday Soomaalinimadii baad ilowday Afrikaanimadii baad ilowday Islaamnimadii baad ilowday intaas soo dhan baad sidataa sharaftooda iyo karaamadooda ku ciyaaraysaa waay brika maalin qof magacaagii oo kale wato ama Soomaali wato ama Afrikaan wato ama Islaamnimo wato kiyo kalun baa loo arki doonaa marka kuwaasan rabnaa insha Allah inta rabadaanka lagu jiro qodobo badan oo ku saabsan inaan ka wada hadal haddii Ilaahay yiraahdo maantana intaas un baan rabay inaan idin la wadaago caafis iyo musaamax baad iga tihiin dhamaantiin idinkana waan rajeynaa inaad cafidaan haddaad cafin weydaan maalinta qiyaamaha inoo waraysan doona haddii Ilaahay yiraahdo khayr iyo barakaan idin rajeynaya dhammaan mucaarad iyo muxaafid badad walaalaha baan ahay kaliya waxaan rabaa inaan idin sheego waxaan doonaynaa Saciid Yuusuf Warsame walaal aad ban salaanta kaaga qaaday kaliya waxaan rabaa marka inaan idin sheego intaanan ka bixin hal qodob baan doonayaa dhammaantiin inaan idin xasuusiyo haddaad mucaarad tahay iyo haddaad muxaafid tahayba qodobka kaliya aan rabo inaan idin xasuusiyo wuxuu yahay kow adigu qof Soomaaliyeed baa tahay wixii xil haya waxba kaama gelin qof shacab baa tahay nolol baad u baahan tahay ammaan baad u baahan tahay dhaqaalaad u baahan tahay shaqaad u baahan tahay waxbarashaad u baahan tahay dawlad taama inta lagu helaa maxaa dawladnimadaada adigu wixii danta kugu jirto samay hadday noqon lahayd inaad ciidan taageerto hadday noqon lahayd inaad cid kale caawiso haddaad noqon lahayd inaad dadka si sax ah wax ugu sheegto wada sax ah aad u tilmaanto hadday noqon lahayd qof kasta dariskaaga ha noqdo cid kale ha noqdo wixii wanaagsan inaad u sheegto laakiin si qof baan ku daba dhimanayaa tusaale ahaan maamul goboleed nin haystaban madaxa saaranayaa war ninka maamulka goboleed haysta dadka maamulka goboleed degan kama xigtid dadkaas kuula siman yahay maalintii uu qofkaasi iska daa wax kale agaasiman waaxeed noqdo waxaad idinka wadaagteen iska ilow dadkaas uu agaasimaha u yahay baad ula siman tahay kii caaya kii habaara kii amaana wuxuu yahay lagu sheegaya hadduu wacan yahay waa lagu amaanaya hadduu xun yahay waa lagu canaananaya hadduu wuxuu yahay dadkaasi u taala adiga waxba kaama gelin walaalka maalintuu noqdo markuu noqdo xildhibaan ama uu noqdo wasiir adiga walaalnimadaadii meel iska dhig walaal wuu ku leeyahay markii labadiina ay noqoto ha walaalnimadaadii wanaagaaga kula dhaqan laakiin dadkan ka difaacaya dadkan kale oo madaxda u yahan ka difaacaya wasiir markuu yahay wasaaradda uu ka shaqeeyo shaqaalaha jooga hadduu ku xumaado way caayayaan way habaarayaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan hadduu ku xumaado way caayayaan way habaarayaan wax xarbaan bay ka sheegayaan xataa haddaad adigu wanaag u aragto waayo walaalka kulama xumaan karo adigu haddaad wanaag u aragto dad baa xumaan u arkay faraha waqa waayo isaga xil qaadin eed qaad baa la yiri marka ummadda Soomaaliyeed waxa aynu isku haysanaa waa inta waxa habeen iyo maalin ugu soo caydaana waa inta waxa uga afla gaadaysan waa inta war ninkan
maalintuu xil qaaday adiga xayndaabkaagii qabiilnimo uu ka baxay hadduu adiga wax kula wadaagay bahnimadaadii meel iska soo dhig maalintuu kuu yimaado kula dhaqan laakiin ummadda ha ka xigsanin walaa axmed madoobe walaa shariif sakiin walaa xaaf walaa cid kale walaa gaas walaa cabdiile cidday doontaba ha noqoto wax alla waxay doonaan ha noqdaan qof allaaliyo qofkii maalintuu xil qaaday intaa keliya ummadda soomaaliyeed hadday fahanto waa dad walaalo ah waxba kama dhexeeyaan dagaal ma dhex maro dad baan iskugu jecelnahay waxa isku kala diraya waa siyaasad maxaa kaa gala qofkan maalintuu xil qaado adigu faraha ka qaad xil buu qaaday soma nin xil qaaday eed qaad war kuwa nala dhashaa xildhibaanada ku jira habeen iyo maalin waan caynaa kuwa nala dhashaa wasiirra habeen iyo maalin baan caynaa qaar baa madaxa habeen iyo maalin baan caynaa wax naga galay dhalashada ma jirto waxaan u hadlaynaa ummad soomaaliyeed weeyaan marka aad iyo aad baan idin wada salaamaya dhammaantiin insha allah waana rabadaan ka soo socda